si dowladda Soomaaliland iyo dowladda Puntland waa in ay ka wada dacwoodaan oo dacwo ay ka wada geeyaan waxa soo haray qodob beeka waxayna Soomaaliland yes Soomaaliland xor ay u yihiin waa dowlad madax bannaan way Soomaaliland annaga dhahayna horeyna u dhihi jirnay hadda ayaa reer Puntland ogolaadayna 3 sano 2 sano ka hor reer Soomaaliland way yaqaan ayaa waxa la oran jiray Soomaaliland waa dowlad madax bannaan hadda ayaan ku celcelinaynaa cid ay caloosha xanuunayso we don't care waxna galay ma jiraan annaga waxa dan loo ah horumarka Puntland nabadda Puntland shacabkaygu inay nabad ku noolaadanayo inaan qorisito 2025 maalin walba jaahil inaan aado dila landheera abaan dila maalin walba 100 qof 500 qof iga dhimato wiilashayda ay dhintaan ay ku khasaaraan dagaalka maxaa ii geystay waay aan u dhimanaya maxaa u meel fogna la gaarsiin heshiiska afarta qodob ah ee dhexmaray Soomaaliland iyo Puntland oo waliba soo daahay inkastoo xilligiisa ku yimid baahi weyn baan u qabnay waligii ayaan wax lahaa war Soomaaliland hal la heshiiyo war waa dad la fahmi karo war duriyada hal la heshiiyo war duriyada hal la fahmo war duriyada hal la fiir dabki baxaya dab lagu darsada war ummadda wax fahmaysa la jaan qaadaa ummadda wax fahmaysa wax la qaybsadaa ummadda wax fahmi Soomaaliland waa dad nabadda jecel waa dad horumarka jecel waxaad ka garanaysaa inuu nabadda jecel yahay dhulkooda waxaad ka garanaysaa horumarka inuu jecel yahay orda Hargeysa tag sida u dhistana u jeeda Berbera tag Burco tag sida u macnaha waa dad ku mashquulsan horumarkooda iyo nabadooda hal nin oo al-shabaab ah ama hal nin oo argagaxisa Hargeysa laga dhaxlaya hadii la raadiyo habraha ba sheegayba habraha meesha subax albaabkii soo wada fariistaan halkaas kii ay fahmi waayaan ama madow ama tuurle waxay leeyihiin kaas tuurta la muxuu ah oo magaalada soo gal waaba yaqaan waa u diiwaan gashayn kan tuurta la waa ka shaksanaha la soo qabto maamooyinka hooyooyinka sheegaya intaan dawladda la gaarin hooyooyinkii sidii dal aan hadda joogi jiro Finland la yiraahdo hadda ay ka shakiyaan laba jeer aan meesha marta habraha daaqada kaas waa yeelada daaqada kaas oo filan booliska waxa leeyahay nin madow meesha maray Hargeysa waxa leeyahay nin tuur la halka maray nin madow nin aan isaaq inta badan duriyadu waa cadcadiin moogta nin madow hadii arkaan waxa leeyahay midaan isaaq u ekeen ba halka maray leeyahay midaan samaroon u ekeen samaroonka xataa waa dadka xagga ku nool inta badan yaa waa dad maartay anyway aan ka gudbo afarta qodob waa afar qodob oo muhiim anaga inoo ah haddaynu nahay reer Soomaaliland haddaynu nahay reer Puntland maxaa ka mid ah iskaashiga isdhexbarka dadka oo dadka maxaa loo kala xayirayaa soo in lagu farxa ma ah kuwa ka naxaya marka maxay yihiin soo cadow ma war inaan kala ganacsano oo reer garow ay tagaan Hargeysa garow timaado oo Burco aan tago oo Berbera aan tago oo Berbera iyo Burco ay Boosaaso iyo Gaalkacyo qarna ay tagaan maxaa diidaya maxaa jira what's the problem iskaashiga xagga amniga war haddaan amniga laga wada shaqayn oo aan maxay argagixisada la wada dagaalamin oo aniga ay ugu gabato oo marka xagga ay soo dhibaatayso marka aniga ay dhibaataysana xagga ay ku gabato goorme aan iska celinayna argagixisada goorme aan macnaha ka takhalusayna goorme soo gabagabaynayna haddii hooy leedahay ay ku gabato kuwa marka diidan waa kuwa cadowga ah oo waliba argagixisada kamid ah hawada ayaa laga hadlay waa sax muqdisho waa ku takrifashay hawada marka waa in ay dacwo ka wada geeyaan Soomaaliland iyo Puntland si dowladda Soomaaliland iyo dowladda Puntland waa in ay ka wada dacwoodaan oo dacwo ay ka wada geeyaan waxa soo haray qodobka xawa abgaalay baa ka qaylisan la igu lahaa oo ahaa maxaa ahayto Soomaaliland ayaga xor ah maartay arimahooda iyo beeka waxayna Soomaaliland yes Soomaaliland xor ay u yihiin waa dowlad madax bannaan way Soomaaliland annaga dhahayna horeyna u dhihi jirnay hadda ayaa reer Puntland ogolaadayna 3 sano 2 sano ka hor reer Soomaaliland way yaqaan ayaa waxa la oran jiray Soomaaliland waa dowlad madax bannaan hadda ayaan ku celcelinaynaa cid ay caloosha xanuunayso we don't care waxna galay ma jiraan annaga waxa dan loo ah horumarka Puntland nabadda Puntland shacabkaygu inay nabad ku noolaadanayo inaan qorisito 2025 maalin walba jaahil inaan aado dila landheera abaan dila maalin walba 100 qof 500 qof iga dhimato wiilashayda ay dhintaan ay ku khasaaraan dagaalka maxaa ii geystay waay aan u dhimanaya
maxaa kan dilay waa Soomaali waa in adeerkii waa in abta waa eegay isku diin baanahay isku dhaqan baanahay isku dad baanahay nalama kala yaqaan markaan dibadan joogno aniga iyo hadda kan isaaqa markaan is ag joogno cidna kala walaalaatiin baan leeyahay ninka cadaanka Tanzania haddaan wada joogno waxa leeyahay walaalaatiin cidna kala taqaan ma laha waay markaan isku dilayna maxaa naga dhaxeeya walaal haddaad waxba fahmay walaal haddaad falan tahay walaal haddaad qori kaliya aad taqaanid haddaadan nolol kalaba aadan haysano aad qoriga u kaca annagu iyo duriyada waxaanu naqaanaa sidaan u noolaano waxaanu naqaanaa sidaan dalkeena u dhisano waxaanu naqaanaa sidaan horumar u gaarsiino waxaan waraad dhageyst nimanka ma jeerteen baan la hadlayaa nimanka ma jeerteen koo waxaan arkay ma jeerteen ah oo problemka jira wuxuu yahay haddii afuunta dhasho fuundo macnaha dooradu ukunna waa fiican tahay waa aragtay waxba laga faa'iidaa ukunna way fuundoodaa sidaa tan meesha nooga qayliya oo aniga maxay ahayd in adeerkeeda ah waa fuundo waa ukun fuunda ah guursada gabdhaha isaaqa guursada duriyada guursada maxay ahayd kala dhala maxay ahayd wax dab ah shidan oo dab leh anigu maxay ahayd nimanka isaaqna ha guursadaan gabdhaha maxay ahayd ma jartaan isguursada waa kulli kuwaasna waa geenyo way wada qurux badan wax qurxan baa la guursadaa wax qurxan ayaa la guursadaa marka gabdhaha Puntland waa qurxan yihiin kuwana waa qurxan yihiin inta kala isdhex gashaan oo isguursataan oo maxay ahayd ku hadda anigu gabadha saaqban ilma ka dhalay وهاي وحلي يقول من روش بقى المها ياكل اسمه قبل الجرمل بقى كذا شيء هذا سيدوك قبل عمر حمود المها يدا شيء محيط تكون متشرتين المها يدا لنا سيدوك الوا محيطه قبل إذا هذا يقدم متيو عمر حمود قبل عمر حمود يدا شيء والله بالله طلع دتك محل حديث جدا ورهذا قبل أن ياد هاي قبل أن نوع عائق لا يوم حرسته ولو صغير يكون مت واحد قرحان بقى واحد فيري ويل كاجو هيلي مركعات معناها عاد قرصني سالو سا ugu helaysa nasabiyad kaliya ma quruxdana ugu helay waxa kale ugu helaysa abtigi waxa hadda gabdhaha ma jirteen dawa qurxayn laakiin haduu abtigi doqon yahay abtigi waa wiil waa abtigi ma maqli jirto weydii gabadha guursanaysa walaalkeed ama dadka soo warayso haduu doqon yahay gabadha guursan ka carar sababta wiil doqoray ku dhalaysa haday qurxan tahay xataa hadhow meesha intuu soo farsuucay aniga abtigay markay idhalayaan aniga abtigay markay idhalayaan ukun inay dhalaan baa loo qaatay waa hada hooyadii wuxuu u jawaabay marka hooyadii ayuu wuxuu leeyahay abtigay markay idhalayaan reer mahad markay aniga idhalay ukun inay dhalaan reer mahad oo dhan ma wada dhalan gabar reer mahad ah dhish gabadhii uu marka dhaawacay sheegay habraha meesha subax albaabkii soo wada fariistaan halkaas kii ay fahmi waayaan ama madow ama tuur leh waxay leeyihiin kaas tuurta le muxuu ahaa magaalada soo gal waa yaqaan waa u diiwaan gashay kan tuurta le waa ka shaksanaha la soo qabto maamooyinka hooyooyinka sheegaya intaan dawladda la gaarin hooyooyinkii sidii dal aan hadda joogi jiro Finland la yiraahdo haddaad ay ka shakiyaan laba jeer aad meesha marta habraha daaqada kaas waa yeelada daaqada